dhinaca kale waxaa dhinac socday guulo la gaaray iyo howlgallo nabadiidka lala beegsaday oo ugu dambeysay kii maalintii shalay ahaa dhacay ee deegaanka Jamaama halkaasoo cadowga loogu geystay khasaare baan howlgalkaas oo u mideysnaayeen ciidanka daraawiisha Jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa jiray mid kale oo habeenadii ka sii horreysay ka dhacay magaalada Garbaari oo si gaadniin ay damceen inay ku waxyeeleeyaan laga hortagay halka khasaare loogu geystay hubna looga furtay marka waxaan ugu mahadcelinaynaa ciidamada geesiyaasha Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhammaan deegaanadaas ka howlgalo oo ka hortagay fashiliyey la dagaalamay cadowga sidaa awgeed ammaanka Jubbaland waxaa waajib dastuuri ah ku ah dowladda Jubbaland inay ilaaliso oo adinka aad u idmateen u doorateen waa waajib dastuuri ah marka cidna gorgortan lagalama gelayo cidna loogama xishoonayo ammaanka waa muqadas Jubbalandna waxay diyaar u tahay inay difaacdo ammaankeeda ololihii doorashooyinka intay jireen doorasho kastoo caalamkan ka dhacdo waxaa ka dhaca tabashooyin baa dhaca tabashooyinkii jiray dowlad goboleedka Jubbaland waxay fidisay gogol nabadeed wada hadal dadkii wax ka tabanayay dadkii ku hangoobay dhammaanna 80% si nabadgelyaha ayaa lagu xaliyey 20 hartayna waxay dowlad goboleedka Jubbaland diyaar u tahay inay ku xaliso wadada wada hadalka iyo isafgaradka cadowga kale oo leenahay waa al-shabaab ma jirto cid kale oo cadowna ah inta kale waxaan rabnaa wax walba inaan ku furno wadada wada hadalka iyo isafgaradka iyo gogol fisan cadow nooma aha qofka naga aragti gidisan cadow nooma aha qofka xilka ku tartamayo doonaya inuu nabadelo cadowgayga waa shabaab inta kalena waxaan rabnaa wadada wada hadalka iyo shuruucda u degsan nidaamka dowlad goboleedka Jubbaland dhexdooda inaan ku xalino arrimahaas nabadgelyada waxaa qayb ka ah xagga nolosha hadday nolosha xumaato nabadgelyada waa xumaanaysaa waxaa jirtay cunaqabateyn dowladda federaalka ay saartay deegaanada Jubbaland oo xagga gaadiidka ah taasoon aad iyo aad ugu xunnahay kana dhalatay dhibaato bini'aadinimo waxaana ku cambaaraynaynaa ciddii ku lug lahayd waxaan ummaddeeda qaban muwaadiniinta ay xaq u lahayn ku soo rogtay oo adinkaba aad wada ogtihiin arrimaha siyaasadda dowlad goboleedka Jubbaland ayadoo fulinaysa waajibaadkeeda dawliga ah xilliga hay-adaha kala guurka ah bishii Janaayo sanadkan waxay u howlgashay inay qabato doorashooyin xor iyo xalaal ah sida dastuurka uu nafarayay waxaa la magacaabay guddigii doorashada ee madaxa bannaanaa iyo xuduudaha oo dastuuriga ahaa waxaan ku ammaanaynaa guddigaas sida howlkarnimada muwaadinimada iyo mas-uuliyadda leh oo ay waajibaadkoodii u fushadeen waxay casuumeen odayaashii dhaqanka ee xaqa u lahaa inay soo xulaan baarlamaanka labaad ee Jubbaland waxaan ku ammaanaynaa odayaashiyada dhaqanka ayagana si ay waajibaadkoodii u fuliyeen oo u soo xuleen 75 xubnood oo dastuuriga ahaa oo baarlamaanka labaad ee Jubbaland baarlamaankii wuxuu doortay guddoonkiisa si nabadgelyo leh ugu dambeyntiina 22 bishii 8aad 2019 waxay doorteen madaxweynihii dowlad goboleedka Jubbaland 4 sano oo soo socota hogaamin lahaa sidaa awgeed dowlad goboleedka Jubbaland waxay u soconaysaa hore dib u laaban mayso dowlad goboleedka Jubbaland waxay ku dhex shaqeynaysaa sharciga iyo shuruucda u degsan nidaamkan iyo kan qaranka Soomaaliyeed oo dastuuriga marka doorashadii waa dhacday madaxweynihii waa la doortay waxaa dhisan hay-adihii dawliga ahaa waxaa dhisan hay-addii garsoorka
hay-addii sharci dejinta hay-adihii amniga wasaaradihii dowladda marka Jubbaland hore baa u soconaysaa gadaal u socon ma haysa aragtida ah in Jubbaland la burburiyo dib loo celiyo wax loo yeeriyo ma aqbalayso maxaa yeelay waa hay-ad xubin ka ah dowladda Soomaaliya dowlad goboleed ah sharci iyo shuruuc ku fadhida arrimaha bini'aadanimada deegaanada Jubbaland waxaa ka jira abaaro qaybo badan oo ka mid ah biyo la'aan nafaqa darro waxaa jira cunaqabatayntii la saaray deegaanada Jubbaland saameyn ka dhalatay oo shacabka la ildaran yihiin hal tusaale marka la bixiyo gaadiidka ka bixi jiray magaalada Kismaayo oo xagga cirka ah oo doobley tagi jiray oo $80 qofka ku raaci jiray maanta waxaa looga baahday $240 inuu bixiyo 6 saacadood oo safarna uu galo arrintaas oo dadka inta heli karto oo awoodi karto ay yartay sidaa darteed waxaa ka dhashay dhibaata ka dhalatay inay dadkii jidka maraan cadowga dhibaateeyo gabdhihii umalayay oo lagula soo cararay baabuurta ay dhaxda ilmihii ku dhintaan ayaga ku dhibaatoobaan arrintaas oo lagula xisaabtami doono hay-adaha sharcigan aan u gudbin doona ciddii cunaqabatayntaa saartay oo dowladda federaalka Soomaaliya oo xaqdarrada ku samaysay shacabkii doortay u bannaan baxay soo dhaweeyay arrimaha abaaraha dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Jubbaland iyo caalamka kaleba siday isu gargaarsan jireen loogu gargaari jiray dadka dhibaataysan haraadan xoolihii ay dhaafayaan yaan ka codsanaynaa in gacan buuxda ayagana ay ka geystaan ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka ummadda Soomaaliyeed in ay ixtiraamaan wada noolaanshaha iyo wada jirka dadka reer Jubbaland inay soo celiyaan doorkoodii dhexdhexaadnimada ahaa inay ogaadaan Soomaaliya inay shakhsiyaadna lahayn gruubna lahayn Soomaaliya Soomaali baa leh xeer iyo nidaam ay ku heshiisay ku wada joogtaa inay ka ayagoo ixtiraamayo ay doorkoodii dhexdhexaadnimada ahaa soo celiyaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Jubbaland in wixii lagu heshiiyey oo ahaa nidaamka federaalka ay u howlgalaan waajibaadka iyo shuruucda dalka u degsan ay nagu gacan siiyaan waxaan ugu digaynaa fargelmaha socdo kuwa nagu soo wajahan iyo kuwa hadda la abuurayo taasoo dhammaantood ah duminta nidaamkan jira duminta dadkan wada nool in la dhibaateeyo oo la kala diro cid kasta oo ku lug leh inay dib ugu baxdo haddii kale cawaaqibka ka dhasho ay mas-uuliyaddeeda iyada qaadi doonto reer Jubbalandna ayagoo dowladdooda iyo shacabkooda iskaashanaya ay isdifaaci doonaan nidaamkooda meel fog baa laga keenay waqti dheer bay ku qaadatay qiimo dhiig iyo dhaqan iyo dhaqaale leh buu ugu fadhiyaa ma sahlano in damac shakhsiyadeed loo burburiyo marka waxaan ugu digaynaa dadka ku lugta leh fargelintaas dib noo celinaya na burburinayo calanka iyo astaanta iyo tasuurkaan samaysanay wasaqaynayo oo baabiinayo inay ka joogaan haddayna ka joogin cawaaqibka ka dhasha inay mas-uuliyaddeeda qaadanayaan sidaasi la mid ah waxaa xaqdarro ku xiran wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland oo nin mas-uul ah oo xasaanad lahaa oo laga afduubay garoonka Muqdisho in badan aan ka hadalnay maalinta la qabtay ilaa maanta dhexdeeda inaan cadaalad helin asagana waxaan ugu baaqaynaa dadka ku lugta leh qabashadiisa ilaalinayo xaqdarrada ku haysto inay dib iskugu noqdaan oo xorriyaddiisa iyo sharaftiisa u soo celiyaan